Assalaamu calaykum. Cillian Murphy waa kuma? Maxaa mar waliba loogu soo qoraa sawirrada dhiirrigelinta amaba xigmadaha? Maxay tahay sababta mar waliba aad u aragto asagoo niyad jabsan amaba murugaysan? Maxay tahay sababta hadalladiisa loo soo qaato loona soo saarto status-yada? Waxaan maanta idinla wadaagi doonaa qisadiisa oo dhammaystiran. Jilaaga caanka ah ee reer Ireland, Cillian Murphy, oo lagu naanayso Thomas Shelby, wuxuu ku dhashay Douglas. Waa curadka reer Brendan Murphy oo ah aabihii oo u shaqeeya waaxda waxbarashada ee Irishka iyo hooyadii oo ah macallimad luqadda Faransiiska ah. Leeyahay 3 walaalo oo ka yaryar. Murphy wuxuu wax ku bartay Presentation Brothers College. Wuxuu sii gudbay inuu barto kulliyadda sharciga, laakiin wuu isaga haray kadib sanad. Intii lagu guda jiray waqtigan, Murphy wuxuu sidoo kale baacsanayay xiisaha muusigada, isagoo garaacaya gitaarka kooxo kala duwan. Markii uu ka tegay jaamacadda, Murphy wuxuu ku biiray shirkadda tiyaatarka Corcadorka, wuxuuna door hogaamineed ka ciyaaray Disco Pigs iyo riwaayado kale. Dhowr badan oo filimo ah ayaa ku xigay oo ay ku jiraan la qabsashada filimka Disco Pigs ee 2001. Kastaba ha noqotee, filimkiisa weyn ee filimka ayaa yimid markii lagu tuuray Danny Boyle 28 maalmood kadib, taas oo noqotay la yaab caalami ah. Waxqabadkaasi wuxuu kasbaday magacaabis loogu talagalay qofka cusub ee ugu fiican abaalmarinta filimka MTV. Murphy wuxuu sii waday taageeridda doolarka filimada aadka u sarreeya sida Gold Mountain ee 2003 iyo filimkii Girl with a Pale Earring ee isagana ahaa 2003. Inkasta oo ay dabeecaddu ku yartahay sharku, haddana indhaha buluugga ah ee Murphy ayaa gacan ka geystay abuurista waxqabadyo cabsi leh oo kuwa naqdiyana waxay bilaabeen inay fiiro gaar ah u yeeshaan. Manohla Dargis, oo ka tirsan wargeyska New York Times, ayaa Murphy u soo qaatay nin xun oo sawir fiican, halka Dennis Darby oo ka tirsan The New Yorker uu xusay in labaduba khiyaano badan yahay. Dabayaaqadii sanadkaas, Murphy wuxuu matalay Patrick Keaton Braden oo ah jinsi u dhashay Irish oo raadinaya hooyadiis. Filimkan Sagna Breakfast on Pluto oo la jiray 2005 oo ah filim ku saabsan cabsi. Inkasta oo filimku aanu ahayn guul-soo-hooyinta xafiiska, haddana Murphy waxaa loo sharaxay abaalmarinta dahabiga ah ee aktarka ugu fiican majaajilada amaba muusigga, wuxuuna ku guuleystay aktarka ugu wanaagsan abaalmarinta filimada iyo telefishinada Irishka. Sanadkii ku xigay, Murphy wuxuu ku jilay filimkii Ken Loach's The Wind ee ruuxay shaciirka. Filimku wuxuu ahaa filimkii ugu guusha badnaa ee madax bannaan, wuxuuna u soo hooyiyay guul aynan marnaba filan. 2006 xafladdii filimka, Murphy wuxuu sii waday inuu door ka ciyaaro dhowr filim oo madax bannaan. Murphy wuxuu guursaday Fionn McGuinness oo iyaduna ah fanaanad. Lamaanuhu waxay leeyihiin 2 wiil oo lagu kala magacaabo Malachi iyo Owen. Haddaba mawduuceena maanta intaas ayuu ku dhan yahay. Haddii aad ka heshay fiidiyowga, ha iloobin inaad like saarto, subscribe-na aad saarato si aad u daawato fiidiyoyaal badan oo kuwan camal ah. Mahadsanid. Wassalaamu calaykum.